kulanti wacan oo wanaagsan ikhyaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eeba uu idmo. qodobada wararkeena waxaa kamid a ciidanka booliiska gaarka ah ee Haramcad ayaa waxaa la sheegayaa taliyahoodii markii la dilay inuu ugaarsi gaar ah uu ku socdo dagaal maantana ku dhexmara iyaga iyo ururka al-shabaabna inay ciidamo fara badan oo Haramcada meesha lagu laayay ayada oo aan soo sheegin ciidanka nisa oo ka garab dagaalamaya inay wax dhibaato ay soo gaareen dhaawac iyo dhimasho toona. hase ahaatee wararku waxay sheegayaan inay ku-xigeenkii taliyaha gobolka Banaadir ee booliiska Farxan Qaroore ee la dilay ku-xigeenkiisa inay maantana asagana la dilay. dadku waxay leeyihiin Haramcad si gaar ah ayaa loo ugaarsanhayaa oo waa la tirtirahayaa. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan ururka al-shabaab oo codsaday in bilaa shuruud la-aan ay dowladda Soomaaliya ay wada hadal la galaan kadib markay kala shaki xoogan uu soo kala dhexgalay dagaalkiina ay ku jabeen ayay waxay codsanhayaan in ururka al-shabaab ay dowladda ay la galaan wada hadal. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan dhalinyarada ka tirsan gobolka Hiiraan magaalada gobolka Hiiraan ayaa degmada Matabaan ayaa waxay maanta dhagax dhigeen taalo taas oo loo dhisayo Cali Jeyte loona aqoonsanayo in uu yahay halyey qaran. waxaa qodobada wararkeena igula sugan oo isha ku hayay saaxiibkay Cabdi soo dhow. warar baa waxay sheegahayaan in dhalinyaradii Haramcadka si gooni ah loo ugaarsanhayo oo taliyaashoodii la dhamaynhayo. wararkaas maxaad kala socotaa? maado horta waa maasan tahay Haramcad waa horta ciidamada tababarka fiican haysto ee dowladda Soomaaliya ku faanto Haramcad iyo Danab iyo Gorgor waa ciidamo aad u tababaran oo ay ka faa'iideysteen dowladda Xasan Cali Khayri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hogaaminayeen Fahad Yaasiin. marka waa ciidamo dadaal badan oo aad u adag waa ciidamadii badbaadiyay hotel Xayaat iyo hoteelo kale fara badan magaalada Muqdisho, hotel Afriq iyo hoteelo kale magaalada Muqdisho lagu qarxiyay ciidamada galay waaye. marka ciidamadan waa ciidamo tababar fiican haysto marka waa booliis laakiin waxaa loo isticmaalaa sida qaabka militariga kale maadaama ciidamo aan baqin ay yihiin dagaaladana galaan. hadda dagaalka Basra ka dhaco kale aad ay u galeen maxaa la dhahaa iyaga meesha hadda 5 qof ay ka dhimatay sida wararka ay nagu soo gaareen laakiin ayagana 19 qof ay dileen ilaa 12 kalena way dhaawaceen. marka mar haddii dagaal la galo dadku way dhimanayaan ciidamada Haramcadna waxaa waa dagaalka loo isticmaalaa sidii militariga camal u shaqeeyaan. waa ciidamo howlgala gobolada la geeyay xataa waagii dagaaladii ay jireen gobolada la geen jiray haddana weli gobolada lagu wadaa dagaalkina meel fiican ayuu marayaa ciidamada Haramcad. laakiin markii dagaal la galo xabadii ugu dhicin ani ma dhimanayo shabaabka bisa dhimanayo taas sax ma aha. xabadu kugu dhacaysa waana dhimanaysaa laakiin ciidamada Haramcad dadka waxay isla dhexmarayaan in leeyahay suuqa la soo geliyo in ciidamada Haramcad la tirtiro lagu kala bedelo ciidamada kale lagu kala daro si ay magacaas meesha uga baxo. marka waxaa la leeyahay Haramcad waxaa laga beegsanayaa Fahad Yaasiin Xaj Daahir kaasoo asaga ciidamo magacaas Haramcad keensaday una aad iyo aad ugu dadaalay in ciidamo magaciisa Fahad macnaha ku shaqeynayo in sidaas ay macnaha ugu howlgalaan Soomaaliya laakiin dadka shacabka wararkaas la dhexmarayaan laakiin wax xaqiiqa lama hayo maado. Cabdi ciidamada Haramcad saad u sheegtayba waa ciidamo aad u tababaran oo tababar fiican haysta dagaalkana ku fiican. waxaa ka garab dagaalamaya oo isla socdaan ciidanka lagu magacaabo nisa sirdoonka qaranka kuwaas dagaalka kula jira badanaana ayagu wax dhibaato hadda weyn lama sheegayo. labaduna waa laba ciidan oo Soomaaliyeed dadkan way isman yihiin laakiin dadku waxay leeyihiin target geesa ayaa saaran ciidanka Haramcad oo lagu baabinhayo. haddii la baabinhayana waxa fiicnaan lahayd in aan la laynin laakiin ciidamada lagu kala dhexdaro oo saa lagu baabiyo magacooda. qodobkaas halka haddii aan kaga tagno Cabdiyow ururka al-shabaab waxay codsadeen inay dowladda Soomaaliya ay la galaan wada hadal way jabeen way soo dhiyeen miya isdhihi karnaa? horta maado ururka al-shabaab dagaal baan ku socdo saraakiishooda la leynaya dagaaladii aad iyo aad ay ugu socdaa meel xun ay xaaladda maraysaa. maanta waxay gubeen ceelal oo isheegeen dad masaakiin ay sheegeen deegaanada maxaas hoostaga ay macnaha biyo ka cabi jireen. marka dadkiina way dad badan ay wateen oo ay ka wateen ceelashaasi dadka qaarna waxa waaye xoolana way ku dhinteen oo qaraxyadaas waxaa kaloo ku dhintay maado daanyaro ayagana biyo usoo doonto meesha waa wax la yaabo waa daanyaro fara badan ku dhamaada la yiri meesha. marka ururka al-shabaab jihaadka ay ku jiraan waa mid ayaga ay jihaad ku sheegaan laakiin dadka shacabka iyo xoolihii bay ku jihaadayaan xitaa daanyaro iyo waxaa la leynaa xoolo. marka heerkaas ayuu maraya dagaalka ururka al-shabaab shacabkana ilaa dhowr ceel ayaa laga qarxiyay maanta. marka al-shabaab xaaladooda ma sahlano
waxaana dagaalku meesha quus ayay taagan yihiin. Marka inay soo dhiibaan dowladda wadahadal la galaan oo wadooyin kale oo furan raadsadaan waa ku qasban yihiin. Haddana bilaa shuruud dowladda wadahadal la gelayna ay leeyihiin. Marka aniga waxaan qabaa nimankaas haddii wadahadal la galo oo hadhow bilaa shuruud dhacana wadahadalkii la galo, hadhow markii lasoo dhaweeyo haddana dib ayay isku abaabulayaan. waagii maxkamadaha waa xasuusanaa 2006 ururka al-shabaab ilaa 2007 waa la beegsaday meesha ay ka baxeen 2006 ilaa ku dhaay meel kasta la isla galay. ugu dambeyntii ciidamada Ethiopia waatay meel walba qabsadeen. ururka al-shabaab waatay magacooda tirmay maxaakiimtii oo dhanba markii magaalada Muqdisho la isugu yimid la isla soo laabtay. magaalada Muqdisho xasan daar oo asmara ka yimiday ayaa wuxuu ka soo degay magaalada Muqdisho, kadibna wuxuu dhahay ahlala soo baxo hubkiina muqaawamad ay halkaas ka bilowday 2007 2008 muqaawama lagu jiray 2009 saano kale marka macnaha wadahadal oo toosana ma codsanin, laakiin waa tii la tirtiro ilaa iyo Sheekh Sharif isdhiibeen qaarna asmar u carareen maxkamadii rag waaweynaa shabaabkiina ceerow meelaas lagu dilay. xaalku waa uu ku adkaaday. marka cabdi waxaas leedahay caado waxay u leeyihiin inay markay jabaan wadahadal codsaan ka bacdina ay ka baxaan. aad iyo aad marka wadahadal hadii la galo oo la isku yimaado hadhow ciidamadooda iyo waxaan haddaan tababar dibadda ah iyo wax kale aan loo sameyno maskaxda aan laga tirin oo waxba laga bedelin, hadhow haddana muqaawama bilaabanayso dagaaladii siba tartiib usoo noqonayaan. marka culays fara badan ay keenayaan. marka waa in shuruud adag lagu xiraa ama hadhow ay sheeg hadda meel la iska saar ama ciidamadooda tababar dibadda loogu qaado ilaa dhowr sano tababar loo diro. cabdi isla wararka ayaga ayaan ku jirnaa. shabaabkii maadaama aan warar inagu aan leenahay horaan aan ku sheegnay, laakiin ayaga dhexdooda waxaa soo kala galay shiki weyn kadib markuu mahadkaratay oo ka dhashay beesha haweeye in uu arkay dadkii dhalinyaradii madaxdii ugu sirsareysay ee ururka al-shabaab ku jirtay haweeye inay la laayay wuu gadooday, dagaal buu bilaabay. mahadkaratay wuxuu ka gadooday cabdullaahi yare waa la dilay oo beesha haweeye qoorgaabna waa la dilay oo beesha haweeye cali dheere asagana waxaa leeyahay wuu dhintay waa la dilay walow aan warkiisa weli aan si cad loo haynin. waxaa kaloo la dilay wiilkii xasan daahir ways. waxaasoo dhan ayaga oo arka wuu gadooday, ayaga dhexdooda isdagaalay baa laleeyahay oo dhib baa hadda ka dhacayo. ayaga isdagaalay wuxuuna weerar ku qaadan layidhi ninkii abu cubayda la dhihi jiray shabaabka u weynaa. ilaaladooda ayaa isdagaashay, waxaana la sheegahayaa inay qayb ilaalada kamida abu cubayda la laayay. war maxaad kala socotaa? maada horta wararkeena horena waa kusoo sheegnay dagaalka al-shabaab u dhexeeya iyo dowladda Soomaaliya muddo fara badan ayaana laga hadlaya arrimahaasi. hadda ayaga ayaa isku soo guda laabtay oo xaaladii meesha ay maraysay hadda way ka duwan tahay. al-shabaabna waxay isku hayaan dagaal ba'an. axmed abu cubayda waa la dhaawacay leeyahay waa ninka ugu sarreeya ururka al-shabaab. waxaa kaloo la dhaawacay la dilay 2 nin oo saraakiil ah cabdullaahi yarahaas iyo ninkii leeyahay faruur, labaduba waa la dilay. marka dagaal culus ah meesha ka jiro. ayaga ayaa is ugaarsaday. mahadkaratayna wuxuu rabaa inuu xilka ugu sarreeyo ururka al-shabaab inuu asaga qabsado. teeda kale wuxuu ku xun yahay deegaanada koonfureed ee beesha hawiye degto in dagaalka iyo qaraxyada ay ku socdaan. wararkeen horena ku sheegna mahadow haddana waa sidoo kale al-shabaab dagaal ba'ana ka dhexeeya. 2 group ayaan u kala baxeen maadaama shacabka Soomaaliyeed isdiyaariyeen, dowladda Soomaaliya isdiyaarisay, dagaalkuna ku wajahan yahay. maanta waxay raadinayaan wado ay meel ay madax kala baxaan iyo qaab loo waxay. marka hadda waxay bilaabeen qaab qabiilaysi ah, nin walba inuu beesha dabada la galo si hadhow markaas la dhaho nin walba ninkan waa la dulmiyay kana waa la dagaalay, qolo walba ay beesheeda isaas ay ku jiidato wada hadal ay isaas ku soo xaroodaan. sheekadii hadda ka hor xasan daar oo iscamil isku soo dhiibo kale inay isku soo dhiibaan. marka xaalad xun ay marayaan, quus ay taageen ururka al-shabaab. mar dhowna waxaan u maleynayaa inay ka dhamaan doonaan saaxadda Soomaaliya. okay, qodobka ayaa jabka al-shabaab haddaan horay ooga sii soconno. ninka lagu magacaabo cali jeyte oo gobolka hiiraan ka ah gudoomiyaha barasaafka yaa waxay dhalinyaro ka tirsan degmada Matabaan maanta waxay bannaan dhagax dhigeen inay cali jeyte u aqoonsan hayaan halyey qaran oo gobolka hiiraan u dhashay. okay mahado waa sax in haddii cali jeyte loo sameeyo taalo waa nin u qalmo maadaama oo tusiyey in shabaabka la iska celin karo oona dhexda u xirtay asagoo gudoomiye ah. hadda waxaa laleeyahay cali jeyte wuxuu ku sugaya magaalada Beledweyne. halis fara badan oo mawjado siyaasadeed fara badan oo wajahaya dad fara badan oo diidan dagaalka ururka al-shabaab lagu hayo ayaa waxaa meesha jooga oo kamid yahay Amiin Jesow, taasoo leeyahay in hagardaamoyin ayuu la raadinaya cali jeyte. marka cali jeyte waa nin hiiraan xoreeyay, waa nin dowladda federaalka Soomaaliya wax u qabtay iyo maamulka Hirshabelle. haddii marka taalo loo dhiso iyo taalooyin fara badan loo dhisaba xataa magaalada Muqdisho hadii loogu dhiso cali jeyte oo u qalmaamaado. kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu dambeeyay oo aan kaga hadlaynay shabaabkii oo jab xoogan soo gaadhay, ayagiina isku kacay, haddana sheegay in ay dowladda Soomaaliya wada hadal ay la geli doonaan bilaa shuruud la'aan. khiyaarta hawada nagala socotay meel kastoo joogtaan saasiyo nabadgelyo.